بسم الله الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. magacayga waa Cabdirasiid Xuseen saaxiibayaal maanta waxaan rabnaa insha Allah taala inaan bilaawno project cusub. Projectkan maanta wuxuu ku saabsan yahay wax loo yaqaano Excel 2013 ayuu ku saabsan yahay. dabcan waxaan rabnaa in aan barano Excelka aan rabnaa inaan barano oo aan ka barano basic inaan ka barano ayaan u baahanahay bacdama saaxiibo badan oo aan ku leeyahay YouTube-ka iyo Facebook ay iga codsadeen in aan bal marka hore Excelka basickiisa aan ka hadlo bacdama aan soo waday project loo yaqaano Excel accounting-ka oo isla markaasna ahay project aad iyo aad u la xiriira xagga accounting-ka. dad badan marka waxay iga soo codsadeen bal Excelka basickiisa inaan wax ka yiraahdo oo casharaan ka sameeyo insha Allah taala. arintaas codsiga darteed ayaan waxaan go'aansaday si aan iskula wada socono si fiican oo kala faa'iideysano in aan marka hore horta aan ka bilaabo Excelka wuxuu yahay casharkeena koowaad maanta insha Allah taala waxaan rabnaa in aan ku barano wax loo yaqaano hordhac ayaan rabnaa inaan ku barano oo Excelka ayaan rabnaa inaan wax yar aan ka sheegno haddii la yiraahdo. dabcan intaa wixii ka dambeeya waxaan rabnaa inaan barano sida Excelka loo kiciyo oo programkaas Excelka si aan u kici lahayn oo aan uga kici lahayn maxaa la MS Office-ka aan uga kacsan lahayn oo aan u daaran lahayn. marka intaas aan barno insha Allah taala waxaan ugu xigi doonaa si aan u save gareyn lahayn Excelka workbook wax loo yaqaano oo taas aan rabo inaan dib aan idinkaga sharaxo insha Allah taala wax loola jeedo workbook iyo sheet wax la insha Allah taala. intaa wixii ka dambeeyana waxaan ku soo gabagabeey doonaa sida Excelka loo xiro oo anagoo isticmaaleyno qaabab badan oo Excelka loo xiro. haddaba haddii aan ka bilaawno sida Excelka loo kiciyo dabcan qofka waa in uu horta yaqaana wax loo yaqaano Windowska sida loo isticmaalo waana muhiim Windowska qofka inuu yaqaano wax badan oo ka fahamsan yahay. haddii uu Windowska waxba uusan ka fahamsanin dabcan hadda stepska raacayo qofka si yaro fiican ayo si yaro hagaagsanayo inuu u fiirsado ayuu insha Allah taala stepska soo raaca. haddii qofka Windows uu yaqaano way ka wanaagsan tahay. hadda waxaan imaanaynaa start button ayaa imaanaynaa dabcan calaamadaas waa maxaa lahaay start menu-ga waaye. dabcan all program ayaan ku dhifanaynaa. all program markaan ku dhifano okay waxaan raadinaynaa MS Office ayaan raadinaynaa. okay Microsoft Office MS Office 2013 ayaan raadinaynaa. saa ujeedaan waa folder waay. folderkaas gudihiisa ayaa waxaa ku jiro programme kala duwan ayaa ku jiro. okay folderkaas ayaan click ku siinayaa. dabcan programmada waa kuwana folderka ay ka soo baxeen. dabcan kaan rabo wuxuu noqonayaa Excel ayuu noqonayaa. Excelka ayaan left click hal mar aan ku siinayaa. left click markaan ku siiyo programka Excelka wuxuu bilaabayaa inuu kaco ayuu bilaabayaa. haddaba haddii aan programka maximize ku sameeyo wuxuu weydiinayaa waxaan u baahanahay amba maxaa lahaye workbook amba waxaan u baahanahay ayuu weydiinayaa. dabcan inta waxaa ku jiro maxaa la dhahay template kala duwan amba naqshadooyin kala duwan oo Excelka uu ku talagalay dadka markii ay rabaan in ay wax sameeyaan inay isticmaalaan. haddaba ka rabnaa anaga wuxuu noqonayaa blank workbook ayuu noqonayaa. blankkaas ayaan ku siinayaa click aan ku siinayaa. haddaba click markaan ku siiyo dabcan waxa ii soo kacaya wax loo yaqaano workbook ayaa ii soo kacaya. workbook haddaan kuu sheego macnihiisa waxaa waaye shiidad badan oo laisku geeyayo waxa loo yaqaana workbook ayaa loo yaqaana amba meesha lagu shaqeynayo waaye oo qofka uu rabo inuu ku shaqeysto. meeshan haddaa fiirsid waxaa noogu qoran sheet ayaa noogu qoran oo ah warqad. haddaba sheetkan iyo wuxuu yahay iyo faa'iidooyinkiisa iyo sida maxaa la dhahay loo isticmaalo sheetka casharka soo socda insha Allah taala aan ku baran doonaa. haddaba inta waxaan rabnaa inaan ogaatid 2007 wixii ka dambeeyay waxay sameeyeen qolada Microsoft waxay ka dhigaan ribbons ayay ka dhigaan wax dhammaan. haddaba meeshan waxaa ku yaalo ribbons kala duwan ayaa ku yaalo. dabcan home ribbon, insert ribbon, page layout ribbon. dabcan ribbon badan ayaa ku yaalo oo mid kasta markaan click siisid gudihiisa waxaa ku jiraan baclooshiisa waxaa ku jiro maxaa la dhahayay qaybo kala duwan oo aan isticmaali karna ayaa ku jiro. korkaan ujeedid waxaa loo yaqaanaa the quick ayaa loo yaqaanaa amba quick access toolbar ayaa loo yaqaanaa. quick access toolbarkaas micnaheedu wuxuu naga caawinayaa haddii aan u baahannahay in waxyaale aan markasta isticmaalno in aan meeshaan kusoo diro bacdama ribbonskan uu nooga baahan yahay inaan ku dhidhifano waqti kastaba si marka aan arrintaas uga baaqsano
dabcan waxaan kusoo dirsan karnaa wax kasta aan u baahanahay quick access toolbarka ayaan ku dirsan karnaa oo meeshaan fanaxda kilkadaan ku siiyo dabcan waxaa ujeedaa waxyaalo badan ayaa ku jira oo inta hadda meeshaan ka muuqdo uu igu jiraa okay quick access toolbarkan haddii aan rabo inaan hoos aan kasoo muujiyo dabcan waxaan leeyahay show below the ribbonka hoostiiska muuji oo ah ribbonkii kor meeshaan kor ku yaala hadda hoostaas ayuu imaaday haddaba haddaan u baahanahay inaan ku celiyo meeshiisa show above the ribbon ayaan leeyahay meeshaas kor ayuu ku noqonayaa dabcan meeshaan hadda inta wuxuu noqonayaa scroll barska ayuu noqonayaa meeshii aan ka jijiidayo ayuu noqonayaa anoo isticmaalaya left click scroll bar ayaa loo yaqaanaa saa ujeedaan meeshaan waxaa loo yaqaanaa status bar ayaa loo yaqaanaa oo waxyaalo badan ayuu meeshaan iga caawinaya inaan ka arko haddaan gudaha aan imaano gudaha saa ujeedaan meeshaani amba qaybtan waa column waaye waa wax joog u taagan waaye dabcan columnkaasi wuxuu magaciisa uu yahay a waaye oo xarfahan waxay iga caawinayaan inaan fahmo in uu yahay columnka in uu magaciisa uu yahay a inuu yahay dabcan okay inta hadaa fiirino dabcan waxaa loo yaqaanaa kan row ayaa loo yaqaanaa oo waa jief waaye rowgan wuxuu noo sheegayaa in aan numberkiisa uu yahay dabcan rowga xaraf maahan waa number waaye dabcan okay soo marka columnkii iyo rowgii meesha iskaga imaadaan intersectionkooda ayaa waxaa loo yaqaanaa aba meesha iskaga imaadaana waxaa loo yaqaanaa cell ayuu noqonayaa unug ayuu noqonayaa oo saa ujeedaa meeshaan waxaa ku yaala cell badan ayaa ku yaalo dabcan excelka wuxuu leeyahay wax ka badan 17 bilyan oo cell iyo wax ka badan ayuu leeyahay cellashaana marka waxay noqonaysaa kuwa aan insha allahu tacaala aan isticmaali doono ayay noqonaysaa saa ujeedaa marka cell kasta magac ayuu leeyahay cell kastaba waxaa waaye columnkii iyo rowgii ayaa isjarayo oo hadda cellkan wuxuu noqonayaa C4 ayuu noqonayaa columnkii waa C dabcan rowgiina waa 4 ayuu noqonayaa si marka markastaba magaciisa saan u ogaano waxaa la fiirinayaa name boxkan oo ujeedid kan wuxuu noqonayaa magaciisa F12 ayuu noqonayaa oo hadda meeshan aan ku dhifto dabcan name boxkan aad fiirisid J9 ayuu noqonayaa oo J oo columnkii ah dabcan rowgiina oo 9 marka cell kastaba magac ayuu leeyahay hadda waan baran doonaa insha Allah tacaala magaca anaga aan leenahay saa ugu bixi doonaa cell kasta amba range wax loo yaqaano range-gan wuxuu noqonayaa wax ka badan hal cell ayaa wax loo yaqaanaa range soo marka waa magacyo doonaa haddii ilaahay dhaho oo range-yadaas magacyo ayaan u bixi doonaa inta saa ujeedaan inta waxaa noogu yaalo wax loo yaqaano formal bar ayaa noogu yaalo meeshaan formal ayaa kasoo muuqan doonto formal bar ayaa loo yaqaanaa intaas markaan aan uga hadalno excelka hordhaciisa haddaba haddaan u baahannahay excelkan inaan save garayno sidee ayaan u save garaynaynaa oo aan maxaan lahay saving ugu sameynaynaa okay habab badan ayaan save ugu sameyn karnaa oo waxaan imaanaynaa file menu ayaan imaanaynaa save ayaan dhihi karnaa dabcan okay escape ayaan taabanayaa qaabkaas waa loo save garay karaa calaamadan oo maxaa la dhahay saveka ayadana click haddaan ku siiyo dabcan wuxuu weydiinayaa inaan save gareeyo escape ayaan leeyahay okay sidoo kale waxaan ku save garay karaa control s haddaan taabto save ayuu noqonayaa asagana wuu save gareey karaa okay waxaa jiro function kale waxaa jiro function key la isticmaali karo oo ah F12 normally waa save as waaye laakiin bacdama uusan filekan save garaysnayn wuxuu noqonayaa in aan rabno inaan hadda aan save garayno ayuu noqonayaa okay escape ayaan leeyahay okay bacdama aan nahay arday bilow aan nahay waxaan u baahanahay inaan barno marka qaabka caadiga ah inaan u save garayno okay file ayaan taabanaynaa save ayaan taabanaynaa dabcan intii ku save garaynaysaa computerkayga ayaan ku save garaynayaa okay meelaha raba inaan ku save gareeyo ayaan u sheegayaa desktopka maa rabaa okay documentska maa rabaa inaan ku save gareeyo meel kale maa rabaa okay aniga maa u baahan inaan u sheego computerka oo browser haddaan taabto waxaan u sheegayaa meeshaan raba inaan ku save gareeyo haddaba waxaan leenahay desktopka ayaan ku save garaynaynaa desktopka ayaan click siinaynaa dabcan waxaan u bixinaynaa baro excel 2013 ayaan u bixinaynaa cashirkeena amba filekeena amba workbookkeena dabcan saa ujeedaan meeshaani typeka amba qaabka loo save garaynayo wuxuu noqonayaa dabcan xlsx ayuu noqonaya xlsx ayuu noqonaya extensionkiisa amba naanaystiisa waana workbook waaye save ayaan taabanayaa okay filekan wuu save garaysan yahay dabcan
okay faylka markaa save gareeyo dabcan waxay noqonaysaa marka haddana in aan u baahanahay marka qaarkood markaa faylkayga save gareystay inaan xiri karo si aan marka faylkayga aan u xiro qaabab badan ayaan u xiri karaa okay meeshaas yaroo plus ay ku qoran tahay amba calaamadaas xada ay ku qoran tahay waan ka xiri karaa okay waxaan kaloo ka xiri karaa wax loo yaqaano okay alt F4 no aan taaban karaa alt F4 dabcan wuu xirayaa ma fahmino amba alt S ka bacdi C ayaan taabanayaa asagana close ayuu noqonayaa oo faylkeena sidaas ayaan ku xiraynaa okay haddii aan rabno in aan faylkeena dib usoo kicino dabcan start button ayaan taabanaynaa all ayaan taabanaynaa dabcan Microsoft Excel okay excelkeena ayaan ku dhifanaynaa anagoo desktopka kasoo kici karno as well as waxaan kasoo kici karnaa programka caadigan waan kasoo kici karnaa oo intaanan dhihin waxaan u baahanahay okay workbook oo plank aan u baahanahay intaan dhihin dhinacan bidixda haddaan fiiriyo waxaa igu yaalo inta maxaa la dhahayay workbook amba inta program excelka la xiriira oo aan kiciyey okay kan ugu horeeya waa kii hadda aan save gareynay kilka ayaan siinaynaa dabcan isaga ayuu kicinayaa okay casharkeena maanta insha allahu tacaala intaas ayaan kusoo joojinaynaa insha allahu tacaala anagoo halkaas kasii wadi doona casharadeena si fiican waxaan rajaynayaa inay ila socon doonto haddii ilaahay yiraahdo haddaba shaashadan horta ka muuqda waxaa kasoo baxayo contact informationka amba si ay igula soo xiriiri kartid haddii aad wax tala amba waxaad rabtid inay igu soo kordhisa insha allahu tacaala soo ciwaankayga uu yahay cantar dadka amba youtube-kayga amba facebook-kayga aad igala soo xiriiri kartid oo meesha ka muuqda shaashada subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaaha illaa anta astaghfiruka wa atuubu ilayk wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatuh